waxaynu ku jiraa bishii ilaahay shacbaan ee u dhaxaysay rajab iyo ramadaan waa bil uu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ana alacmaala turfacu ila allahi tabaaraka wa tacaala in acmaasha ilaahay subxaana wa tacaala loo kor yeelo waxaanu nabigeenu badin jiray soomka waxaanu arrintaa ku sababeeyey inuu doonayo camalkiisa in ilaahay loo kor yeelo isaga oo sooman ayuha almuslimuuna cibaad allah bishan waxa ilaahay subxaana wa tacaala dhexdeeda u dhigay fursad aada iyo aada qaali u ah oo dhab ahaan la odhan karo qofka ka qada waa mid khasaaray fi dunya walaakhira falaa takunuu ya cibaad allah min alkhaasiriina fi hada ashahri alcadiim addoomaa ilaah waa ka mid noqonina kuwa khasaara bishan weyn ee qiimaha badan khasaaraha waxyaabaha sababaya waxaa ka mid ah in habeenka ay shacbaan kala badhanto ay kugu soo gaadho iyadoo qof muslima xumaani dhexdiina ay taallo qalbigaad wax ugu hayso aada xaasidayso aada u cadhoonayso aada goysay oo aada jartay arrinkaasoon ilaahay daraaddi ahayn ee ka kacay adduunyo iyo dheefta nafta iyo nasiibkeeda wax ku saabsan arrinkaa waxaad kaga qadaysaa yaa cabdallah arrin aada iyo aada qaali u ah oo la odhan karo guulaha dhabta ah ee adduunyada dusheeda lagu gaadho ayuu ka mid yahay waa makfiratu raxmaan waa allaha raxmaanka ah cafiskiisa iyo dhaafitaankiisa walaa shaka ya cibaad allah ana duhuuranaa muxamalatun wamuhaqala bidunuub fanaxnu cibaadun nukhtiu bileyli wاnnahaar shaki male yaa cibaad allah in dhabaradeenna dembiya ay culaysiiyeen oo hadhiyo habeenba aynu gafayno qof walibana xaalkiisa iyo gaabintiisa gafkiisa iyo khaladkiisa xogogaal buu yahay waxaanu dareemi karaa qofka muuminka ah ee iimaan dhaqaajiya qalbigiisa uu ku jiro baahida uu qabo in ilaahay subxaana wa tacaala uu cafiyo o u dembi dhaafo waa inuu ku dadaalo wax kastoo sababu noqonaya cafwa araxmaan wamakfiratahu wamaxwahu lidunuubi wasayi'aat wax kastoo arrinta noocaasa ka hor istaagaya addoonka muuminka ahi waa inuu ka dadaalo iska ilaaliyo waxaa ka mid a waxyaabaha ka hor istaagaya addoonka ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa kana qadinaya fursadda qaaliga ah arrintaas aynu sheegnay facan mucaadi bnu jabali radia allahu canh wakadalika warada alxadiid min xadiidi abi muusa alashcari wagayrihima min aلصaxaaba ridwaan اllahi calayhim ajmaciin wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yaطalicu allahu ilaa khalqihi leylata nisfi min shacbaan ilaahay wuxuu soo daalacdaa addoomihiisa habeenka ay bisha shacbaan kala badhanto fayakfiru lijamiici khalqih daalacashada ilaahay fursad qaaliya baa ka dhalata fursaddaa qaaligii waxay tahay addoomihiisoo dhan buu ilaahay u dembi dhaafaa cafis buu ilaahay u fidiyaa iyo saamixitaan laba qolo ayuunbaa laga soo reebaa ilaa limushrikin aw mushaaxin qofka mushriga shirkiga samaynaya ama ha noqdo gaalaan diinta islaamkaba soo gelin oo shirkiga asalkiisii baaqi ku ah ama midaa shahaadanayo haddana